بسم الله الرحمن الرحيم شركة maanta ma galan shirweyn ahay oo martan ninka ahay mudane Jibriil booqashadiisa ninka kooy maanta shirweyniga ayaa ka dhigay xilada qaxootiga xaga dheer maanta oo sabti ah taariikhdana ka beegan 14 bisha afraad 2018 shirkaas oo isku kooyin xeryaha dhadhaab oo dhan dhalinyarada ka sugnayd kuwa matalayan marka shirkaas qodobada ka sameeyaan ma ahay in dadaal dheeraad soo bidoonya sidii horumar laga deersifada bulshadan Soomaali Bantu marka aad iyo aad ayaan ka rayaaqnay shirkaas qodobada oo sameeyay dhigi meeshana aad iyo aad ayaan faraxnay waxyaabo badan falanqeyn dheer kadibna qodobada shirka sameeyay ma ahay in wada xiriir la sameeyo dhalinyarada kuwa introgan iyo kuwa gurogan xiriirkaasi mar walba si socdo marka aadasan dhawaynay shirkaas aad iyo aad aan faraxsanaa dhalinyarada hawshan wadana aad aan ka mahadceliyana hawshan si socoto yaanuna macnaha rabna inaan la sii qaadno waxyaabihii una macluumaad dhinayeen oo ka baahan si una ku gudbino macluumaadkii oo ka baahan inaan soo gudbiyaan marka dadaalka iyo wadan maalgelinta ee dhalinyarada iyo horumarinta dhalinyarada iyo wadan aad iyo aad iyo faraxnay waxna la soo dhaweeyo waaye zaid la soo dhaweeyo marka aad iyo aad aan faraxsan yahay soo dhaweeyana adduunka dhalinyarada ku nool xiriyaha qaxootiga dhadhaab ay leena dadaalkaasi wada bulshadiina siin baahanta dhalinyaradiina siin baahanta dadaalkiisa hadda wadana dadaal oo aad iyo aad lin kamaadaya waaye dan adduunka dhan aakhirana ajar iyo halasan bulshadana marka dadaalkiisa ay tan iyo hamigiisa la tan ina meel isin deersidana ilaahay deersidona deerasan hamigaasna marka meelana kuubsatan dadaalka isin wadan si wada in badan si salaamay dhalinyarada qurba joogta ah oo dadaalkan ay tahay hay'adda SPYL iyo SPYD meelana weligiinba taageera bulshada aad iyo aad aan nasiib farasan salaamu calaykum taariikhda hadda 14 bisha oo 2008 bishii afraad 18 cad sideedka saac waxay ka dambeeyay mashruuc qabsanay dhalinyarada Soomaali Bantu ku nool xirada dheer dhagxile ifo ayagoo wada dhan yaa mashruuc qabsadayna ma sha Allah xirada xagar dheer ayna shirkaasna isu hogaamiyay ninka socdo SPYL iyo SPYD oo doonaskaas oo ku hawlgalayaan wadanka Mareykanka oo qaabilsan Soomaali Bantu dhibaatadii meel walba ka haysato oo Afrika la naqata dibadda la naqata wala ku wadaayo ina wallan qabado iyo codsadeen oo ku codsadooyaan hay'adahaas oo ku hawlgalayaan dibadda ina wallan ku qabada Soomaali Bantu oo ku nool dibadda iyo ay ku codsadooyana dhalinyaradii codsadooytana ma ku noolaan xarada qaxootiyaalka dhagaxle iyo faxana dheer maalgelin oo business dhinaca ganacsiga hirshay sidii oo in la qabsado fadan adduunka sidii oo dadka kale oo barmood daroogan adduunka socodaan ganacsiga in shaqaado sidii oo Soomaali Bantudi oo ku nool hoos injirtana oo Scotland ka shaqaad fadi dhalinyaradaas badana waxyaalo badan markii falaanjiyan maysan batay ina ayagu waxyaalaha la kaliitin abaskalna oo la ka fahansiino wafdi ka socdo SPYL oo ka dhaadhiciya may ahaaytay wixii Soomaali Bantu horumar waaysinta may atay ina oo lanka badi dhinaca ganacsiga heshay saas aawadiya dhalinyaradan iyo may xaqsadana amba garadana ina oo adduunka balanka haysada horumarka taas aawadiya saas dartii iyo may ku codsadooyana NGO-yaashan oo ku hawlgalayaan wadamooyinkaas ina ayaga ka garab qabadan ina maalgelin ku soo beeyaan xariyaasha qaxootiga ilaahay waa mahad leh maanta halkaan suuqaan keenay maantana shirkaan wax loo qabtay waxay ahayd oo ujeedadiis waxay ahayd si markaas anaga bulshada loo horumarinay marka bulshadeena oo maadaama ay aad ay u liidsan tahay waan aragnay dhan walba hadday ahaan lahayd xagga ganacsiga ama dhaqaalaha hadday ahaan lahayd xagga waxbarashada hadday ahaan lahayd dhan walba mid waxaan in laga garab qabto iyada waxaa sida qof walaalkay aniga waxay waxaa macnaha ugu
soo caawinayo laba hay-adood oo hay-adaha dawliga aan ahayn oo magacyadooda marka lasoo gaabo loo yaqaano SPYL iyo SPYD, kuwaasoo mar walba u taagan in ay macnaha ka shaqeeyaan horumarka bulshada. waxyaabo badan oo qabteen oo maanta nala soo bandhigay waa jirtay. aadayna u mahadsanyihiin, welina waxay diyaar u yihiin inay annaga ay na garab qabtaan. maantana meeshaan waxaan ku dooranay dad annaga oo hogaaminaya oo 8 xubnood ka kooban. chairman aan dooranay, vice chairman aan dooranay, secretary aan dooranay, vice deputy secretary ayaan dooranay. waxaan kaloo dooranay speaker iyo vice speaker. waxaan kaloo dooranay treasurer-na waxaa weeliye vice treasurer iyo guddi kaloo dabagal ah. guddigaasoo loo igmaday inay dabagalaan dhaqaalihii lasoo dhiibay, dadkii oo loo baahnaa dhaqaalahaas ma gaadhay. labo, dadkii dhaqaalaha kusoo dhacayna dadkii loo baahnaa ma gaarsiiyeen, dadkii la gaarsiiyeyna ayagana shaqadii loo baahnaa ma qabteen. sidoo hore ay noogu sheegeen dadkan walaalahayga oo dibadda ka imaadeen, waxay noo sheegeen in oo markii hore ay ahayd dhaqaalaha dadka waa la iska siin jiray, laakiin hadda arrinta way ka bedelan tahay sidii hore. oo arrinta waxay ugu duwan tahay dhaqaalaha haddii lagu siiyey micnaheedu ma aha inaad iska qaadanayso oo jeebka gashanayso, maya, waa inaad ku shaqaysaa, waa in dhaqaalahaas aad soo celisaa.